waxaan rabnaa in sha allah ummadda ku saabsan coronavirus inaan soo jeedino. Coronavirus sida arkaysaan waa wuxuu saameeyay waana cudur sababa fayraska dadkii oo total case-ka oo dadka dhan ku dhacay waxay marayaan 3,073,538 dadka oo dhintay waxay marayaan 2,211,788 dhimasho ah. dadka ka bogsadana waxay marayaan 925,123 ayay marayaan. maadaama cudurku uu saameeyay dunida dhan wadankeena Soomaaliya oo ka jiro waxaan ugu talagalnay dadka inaan wax yar aan u sameeyno wacyigelin ah. cudurka calaamadaha lagu yaqaan waxaa kamid ah qandho heer sare ah oo 38 digrii ka badan. waxaa kaloo lagu yaqaanaa qufac qalalan. waxaa kaloo lagu garan karaa in qofka ay neefta ku dhigto oo neef qabatin oo dareemo. maxaa kula haboon marka waxaa kula haboon in aad samayso haddii aad isku aragto karantiin oo dadka kale bulshada aana gaarsiin adna as dhowrto dadka kalena aad dhowrto oo ka fikirto maxaa prevention oo la samayn karaa haddii uusan kugu dhicin cudurka. waxaa samayn kartaa number 1 inaad xirato maaska si aysan kuu soo gaarin hindisyada ama daroobiska dadka kale ka imaanayo. in aad samayso markaa qufaciisid prevention oo kuu noqdo maaska. haddii aadan haysan maasna waxaa samayn kartaa inaad suxulka aad saas ka tiraado hindis aad tiraado ku hindisto ama waxaa samayn kartaa oo kale maro yar ama ishaga waa safilati inaad wasaqda dadka kale ugu celiso maadaama aad gaari raacayso maadaama dukaan aad gaarigayso maadaama aad joogto masaajid maadaama aad joogto maqaayad laga yaabo anyway meel kasto in dadka 2 mitir space ah isku jirtaan waxyaabahaas muhiim ah in la ilaaliyo. haddii aad cudurka isku aragto in aadan qarsan oo meelaha bukaanada lagu karantiilo aad tagto isbitaalaadka si lagu siiyo wacyigelin si lagu siiyo treatment oo macnaha kaalmaati ah. haddii oxygen u baahan oxygen lagu xiro haddii qadha jabinta qanada laga jabiyo. laakiin haddii aad adigu kaliya meel aad sheega u hay iska fadhiisato waxay saameyn kugu yeelanaysaa nafsadaada ayaa qatar galayso. dadka waxaa kula talin lahaa inay iska fikiraan dadka waayeelada ahna ayagana ay ka fikiraan iyo caruurta iyo dadka liito oo jiran oo xanuunsan inay ka fikiraan marka kuga timaado inaad samayso nadaafadda ka fikirto gacmaha aad dhaqdo 20 minutes at least inaad dhaqdo oo shaambo ama alcohol ama saabuun waxaad awoodda ku dhaqdo. in aad ka fikirto dadka kale inuusan cudurka gaarin. in dharka maanta aad ku shaqo tagtay in markaa guriga timaado iska bedesho oo dhar kale aad qaadato. taladaas ayaan soo jeedinaynaa inaad qaadan doontiin insha Allah waa rajaynaynaa. هذا وبالله التوفيق.